هيكل محمد موسى وأديك الصور في شيء أو عن كل كاحية مالية أبشر محمد حسن ومهد كده أولياء بقول قران وذهب كنت قراءة وسنغافوري أعقب هذا أول في شيء أو كل كاحية هيكل محمد موسى هيكل أديك كوكيل نكاح مهد موقع هذه حسين بركة عليه دورنا على الحمد لله واحد معنا يرفع معنا marka waxaan dhihi lahaa midka iyo gabadha waxaa la yidhi ninkii gabadh reer soo koriyey oo quruxda aad yaabto oo lagu soo juhdi la geliyey ninkii intuu yidhi hallaysiiyo nin ka geysisan ma jiraan cidda gabadha dhashay gabadhay ku soo jiidaya tacabeeleen soo koriyeen cilmi bareen oo inta loo yimid inuu yimi yidhaahda gabadhiinaan idinka doonaynaa ayaguna siiyaan cid ka deeqsisani ma jirto waayo gabadh ay intaa kusoo tabcayeen soo koriyeen soo kabiyeen kusoo tabceen waxbareen ayaa inta u yimaada ayay siinayaan marka cid ka deeqsisani ma jirtaa leedahay gabadhii lagu soo tabcay juhdigaa la geliyey ciddii bixisay waxaan leeyahay dardaaran baanu sheegayaa labadii jaanib wiilka iyo gabadha horta waxaan waa u ducaynaynaa waxaan leenahay kuwii isu waara Allah idinka dhigo amiin kuwa khayr qabo waxaa kan aan u fadhinaa waxa weeye khayr baynu u fadhinaa waxaynu u fadhinaa kuwa islaamay u dhisaynaa meel la isugu yimaado meeshii u khayr badeed maadaama qoys islaameed la dhisay waxaan leeyahay kuwa isku waara oo khayr qaba Allah kala siiyo Allah ka dhigo amiin waxaan wiilka ku leeyahay wiilow gabadha reer baana lagu soo tabcay oo soo koriyo soo kabiyey gabadha waa loo sabraa waxaan leeyahay ku sabr gabadha iyana waxaan leeyahay gabadhna waxaan leeyahay sidaas leen baan leeyahay waxa weeyaan إن شاء الله الله يكرمك كويس كوارع الله يكرمك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. سلطان كو هضلي ما شاء الله. وين هاي أبو ما سيها سلطان كو إنه غير السياح. جامع أي مركزيها أو مهنا بلارن مركزي كسوجي دنيا. sidoo kalena kamida maanta halkan soo gaaray dadka markaasi noogu tatarsareeya waxaana markaas suuyaa sidoo kale inuu ku daaweeyo marka la fiiriyo inuu ka soo qaybgalo xafladan badan gurigan halkan aan ku dhisayno naariya boqorada isteelka iyo sidoo kale haykal maxamed muuse oo ah laba qof oo inagu qaaliya waa laba qof oo qiimo badan tahay leh sidoo kalena miisaan fadhiya maxaa yeelay dadka u shacbiga bulshada waana dadka ku akhlaaqda fiican dadka markaasi ugu asluubta badan iyo dadka ugu qaalisan dhinaca faraha bulshada waxaana ku xiran malaayiin qof kuwaas oo ay markaasi ugu barteen hadal wanaagsan iyo wax markaasi dadka faraha bulshada aan dhib markaa aan ku ahayn waxaan leenahay farxad bay noo tahay caawa ama maanta in halkan aan joogno xafladan meherka walaasheena boqorada isteelka iyo sidoo kale walaalkeen haykal waxaana halkan ku aqalgalayaa waa laba beel waaweyn oo ah laba beel oo markaasi boqortooyo ah laba beel oo qiimo badan qaali ah aadna markaasi loo wada garanayo ilan qabiilku waa litacaarifu in la isbartana waa muhiim Soomaalidu waxay tiraahdaa waxaad taqaan guurso waxaad taqaan lagu dhalo sidaa daraaddeed markaa ceeb ma ahan in qabiilka markaasi la isbarto wax markaasi ma ahan waxaad taqaan lagu dhalay
hagaag waxaan rabaa markaan in si guud gabadhida qeybaha dambe gabadhida waxaan rabaa halkan in aan ku soo dhaweeyo Cabdullaahi Axmed oo markaas maadna sameynaya maadaama in hees laga sameeyo iyadana waqti iyo qarash badan dar Ilaahay u gursay halkan markaas dar Ilaahay wax u dhaw waa muhiim ah qaranka in markaas waa mid dadka dib u dhigta Cabdullaahi Axmed soo dhawow si markaas والله دبات قريسه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام لما أنت تذكر الشرف كان فرد يوم السلام يا الوقف السلام يا منصب قليل لما هو ليه سلام كتب إلهي بان مهد علينا اللي هو كل مية وواها كل مو هو خير كبدل متكملة وكل فرحة له وحالكم ما أنت هتكون قرينا أروسكا لبن ليدر وهذا قيمة بدل ومراية المرشدة هوكاك تاير تماتا والله والله قرروا أدوم كان عنكا هيكل محمد موسى يوم ماريا أبشر ويبقى قررنا وحيلاقي مهدية إلى المانتا مرحاتي كانوا قلوه ميركودي وأنا أبو فرحوه وحكوا يرى القلايا نمكن بدون آية كبر أرتيوها ويدا من كبر الصوت كبر بانو كنا وحلي أنا أقول حولها أمين كانوا حكوا كذا كويس كيوه ريلي اللي كان يتشعر اللي موجود ورا ذكرنا حويل أنا وقبل أقول ولا أنت هذا اللي هو مكري خلاص تاسع شكله فلان يا نوار إذا كمل علينا قبل على السيسن ولا حنوقف في الوفاء قوس كاي كسو جهدو يا شخصيته لا يتذكر كاي سنتو وقرطه تاتا الأرض قيمة بدن ولا قبران شحكوت الماما آديات بان إذا كم هاد علينا ورنا ويسير برسجلني ولا يسنقانا آديات بان إذا كم هاد علينا شرفت أدو شرفتين وأنا مهزنته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبيشي ugu horeysay oo jacayl u dhimta وهاك أبو مركزي ومهزي هاي وحلنا مسألة عبد الله أحمد سلام وشجرة وهو يري وحنا قصوا جدا قفك يقولي جعل وقولي قفك يقولي البودر وقت الصمان مركا سيدا درادة البودري ويصوبه قطنتها بغردنا هالكام مركا تكتب ولكن دون قوتي يسوع كل ولي قريب يمشي سيدا القاب كده ونسيت ولي بقرية بودري إن شاء الله وعيك بالنقدونتا أنت يكون تبش ملك سومالا نيجتو وواحد الحسك لوجين دون قوتها سجعلك تاريخ المركز فرصة وهي هاي حفلة وحنا مركز سوق قارن ميلي يبغى بيسنا وهلك
dhammaan dadkan dhan ay sugayaan iyo dadka waqti xaadirkan live streamka nagala socda ee si toos ah u daawanaya iyo dadka goobta markaas ku sugan dhammaan waxay dad u raaricinayaan waa halkan nikaaxa ama meherka halkan ka dhici doona ee inagu weyn inagu qaaliga oo dhammaan aan wada sugayno waxaan rabaa halkan in markaas uu soo fadhiisto Sheekh Cabdikariim ماري عبد الولاد يبدي دوا كو إدري كحتي هذا كون مقيم يا ماري عبد ها مقيا يوغانو كتاب جامعة أبيه وكيل شيء نقول كان وكيل وصادر صدي لبضب وكيل الجوجان شيخ الله وكيل شيء أقولنا أديركي أما قفك وكيل كأها الجوجو أو أسيقنا من الدونو sida caadiga dhaqanku yahay mar walbana dhacda kaas waa sultaankii beesha bar awal gacanta laga qaban rabaa sultaankii beesha bar awal ninkaas futashaarilaha ayaa wakiil ka ah هاي تتا ماشي وجام قريننا حسينو ماشي وجام قريننا ما اسكديس حسينو ماشي نيجي هو استاجير وطقنا وياه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أولا محمد صلى الله عليه وسلم كل حفظة وحفظة مدانة إنا نريد عقد الشرع وفحصان وإله راضي مكيها أن نريد الله هذا bulshada meesha joogto dhan maadaama nikaaxu uu ku dhacayo jamac ama ijtimaaci uu ku dhacayo dhammaan waa wada maqaati anaa maqaati gooni oo hal iyo laba iyo maadaama dadku ay badan yihiin waa inaad ogaatiin inaad dhammaantiina caqadka dhacitaankiisa aad maqaati ka tihiin gabadha waxaa la yidhaahdaa maariyo abshir maxamed xasan wiilkana waxaa la yidhaahdaa haykal maxamed muuse wiilka haddana lama joogo waxaa u wakiil ah walaalkiis aadan u wakiila sidaasa ogaanaysiin gabadha aabbaheeda anigu wakiishay inaan caqad ka rido maharkeeduna waa 100 garaan oo dahab ah oo finti una ah nooca sinkabuurigana ah sidaasaad ogaanaysiin maxaa ka gudaynaa intaasba inaad markhaati ka ahaataan oo aad joogtaan maadaama dhalinyaro iyo nuquubsho iyo akhyaar dhammaan ay meesha joogaan dad haddana dhammaan wada muslimiin oo ahlu taqwa ah aad wada tihiin
ضد حاجة وصول بقى قف كستوري كده والوقرة إلى النقاط مقاتي سلا ضد يا ربك الله سلا حاجة مقاتي هالو سلا سلا عقد كان عليها الدولة مدعية رجال عبد الكريم الشيخ عبد الله محمود حسن عقد الدولة الله يوقي شيء وأنا بقولنا بالله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن بالله ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله وخيرته من خلقه صلوات الله وأزكى تسليماته عليه. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغل للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له به وجاء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الودود فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة. تنكح المرأة لأربع: لجمالها ولمالها ولدينها ولحسبها فاظفر بذات الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه وإلا تفعلوه تكن في الأرض فتنة وفساد عريض. النكاح معين للدين ومهين للشيطان اللعين وحسن دون عدو الله حسين وسبب للتكفير الذي به مباحات سيد المرسلين لسائر النبيين وهو سنة الأنبياء وفعل الأتقياء وشعائر الإسلام وجنة من الفحشاء وإذن وأذن من رب السماء يجعل البعيد قريبا والأجنبي نصيبا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله المعبود الله المصطفى رسول الله وغير ما عمل به كتاب الله هو الهادي المفرق بين الحلال والحرام. أزوج موكلك وأنكح موكلك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. زوجت موكلك وأنكحت موكلك هيكل محمد موسى بنت موكلي مالية أبشر محمد حسن بوكالة وليها إياي وبإذن وليها إياي ومهرها 100 جرام ذهب السنغافورية حالا في ذمة موكلك فلها مطالبة من موكلك متى شاء قبلت له نكاحها وتزويجها بالله. وزوج موكلك وانكح موكلك على ما امر الله به من امساك بمعروف او تصريح باحسان. زوجت موكلك وانكحت موكلك هيكل محمد موسى بنت موكلي مريم ابشر محمد حسن بوكالة وليها إياي وبإذن وليها إياي ومهرها 100 جرام ذهب السنغافورية حالا في ذمة موكلك فهل مطالبة من موكلك متى شاء قبلت نكاحها له وتزويجها بالمهر المجبور. هيكل محمد موسى وقد صور كل شيء أو عن كل كاحية مالية أبشر محمد حسن أو مهد كيد أو يهد بقران أو ذهب كنت قراءة أو سنغافوري أعقب هذا أو كل شيء عن كل كاحية هيكل محمد موسى هيكل أدي وكوكيل نكاحات مهد كاس موقف
ونوع نكاح مهر كاسولو هيكل محمد موسى أو عليك كسوة كيشي أو أنكم نكاحي ماريا أبشر محمد حسن أو أبيها أو كسوة كيشي إن أنكم نكاحي هيكل مهر كذا أو بقول كران أو ذهب أو في تقرأ سيتقوى أم كل يوم كل نكاحي هيكل مهر كاس نكاح أو أقبش مهر كاس نكاح ولو بارك الله هذه حسين بركة عليه دوّن على خير الحمد لله الله نوع الله سكده الله سكده الله حتى النوع الله الله سكده الله